Haddii aad 20 jir tahay, waxaad joogtaa waqtiga ugu muhiimsan noloshaada. Waqti dad badan ay lumiyaan, ciyaaro ku dhameeyaan ama ay ka shalayaan marka ay weynaadaan. Laakiin hal go'aan ayaa bedeli kara mustaqbalkaaga oo dhan. Dhalinyaro badan maanta waxay dareemayaan jahwareer, isku dhaxyaac. Waxay rabaan mustaqbal wanaagsan, nolol qurux badan, xasilooni iyo lacag, laakiin ma haystaan wadada saxda ah. Subax walba waxay ku kacaan ayagoo mobilka haystaan, scrolling sameynayaan, dad kale noloshooda ka duwan tahay ee isbarbardhig ku sameynayaan naftooda iyo waqti lumis. Maalmihii way socdaan, laakiin noloshoodu meel ma gaarayso. Runta adag waxay tahay, qofna kuu imaan maayo inuu badbaadiyo noloshaada. Adiga ayaa iska leh mustaqbalkaaga. 20 jirka waa waqtiga aad dhisayso qofka aad noqon doonto mustaqbalka. Wax kasta oo aad maanta sameyso, caadooyinkaaga ha ahaadaan, fikradahaaga, asxaabtaada, salaadaada, waqtigaaga waxay dhisayaan mustaqbalkaaga. Dad badan waxay moodaan weli waqtiga inay haystaan, laakiin sanadaha si degdeg ah ayay u socdaan. Maalin ayaad soo jeesan doontaa oo waxaad isweydiin doontaa, maxaan sameynayay sanadihii oo dhan? Waqtigu ma istaagayo, laakiin adiga ayaa istaagi doona maalin un. Markay ay dhalinyarnimadaadu baxdo, xooggaaga daciifo, maskaxdaada iyo aqligaagana ay yaraadaan. Maalinkaas ayaad dareemi doontaa in waqti badan aad soo khasaarisay. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dhalinyarada burburiya maanta waa distraction. Saacado badan TikTok ay ku dhex jiraan, scrolling ay sameynayaan, fiidiyow aan faa'iido noloshooda u lahayn ay daawanayaan, iyo dopamine degdeg ah ay isticmaalayaan. Maskaxdoodu waxay la qabsanaysaa madadaalo joogto ah, laakiin guusha dhabta ah waxay u baahan tahay sabar, discipline iyo joogteyn. Dad badan waxay rabaan natiijo weyn, iyagoo aan diyaar u ahayn shaqada yar ee maalinlaha ah. Nolosha iyo mustaqbalka lagu sheegayana wax kale maaha. Waa waxa maanta aad qabsatid, maanta aad sameynaysid ayaa beri kuu noqon doona mustaqbalka meesha aad joogi doontidna go'aaminaya. Maalinkaaga wanaaji, ku dadaal inaad noloshaada hagaajisid. In badan waqti baa naga khasaari dhammaanteen, balse waqtiga mar hadduu ku dhaafo, shalayna wax kuuma taro. Balse marka aad joogtid waa inaad dib isku qabataa, aad dadaal xooggan aad sameydaa. Waxaad hagaajin kartaa jirkaaga, caafimaadkaaga, mustaqbalkaaga, muuqaalkaaga. Laakiin haddii qalbigaagu maran yahay oo weligaa xasilooni dhab ah ma heli doontid. Mar hadduu iimaan qalbigaaga ka maqan yahay, xasilooni iyo deganaan ma heli doontid. Salaadu ma ahan waajib kaliya, waa hanuun, xasilooni iyo xiriirka Allah subxaanahu wa tacaala aad la leedahay. Dad badan waxay raadinayaan nabadgelyo iyo naxariis, laakiin waxay ka raadinayaan meelo qaldan sida social media iyo asxaab kale iyo hanti iyo madadaalo. Laakiin qalbiga Allah ka fog weligii ma degayo. Naxariis iyo deganaan heli mayno haddii aan ka fognahay Allah subxaanahu wa tacaala. Saaxiibadaadu waxay bedeli karaan noloshaada. Haddii aad la joogto dad aan riyo lahayn, hami lahayn, waqtiga lumiya, caadooyin xun leh, si tartiib ah ayaad ula mid noqonaysaa. Laakiin haddii aad la joogto dad discipline leh, iimaan leh, hadaf leh, mustaqbal hiigsanaya, waxaad bilaabaysaa inaad korto adigana. Mararka qaar growthku wuxuu ka rabaa inaad dadka qaar ka fogaato, inaad hore u socoto, hamigaaga kor u qaadid. Waxaad u baahan tahay dadka qaar inaad ka fogaatid, xitaa hadday muddo dheer saaxiibo aad aheedeen. Sababtan wax kale maahan, waa inaysan mustaqbalkaaga aysan kula hogaaminayn, aysan hadafkaaga ku gaarsiinin, ku caawinaynin, laakiin dib ay ku dhigayaan. Asxaabtaas oo kale waa laga fogaadaa. Waa waxyaalaha dib inoo dhigay nolosheen oo idin. Asxaab banooni, asxaab game, waxyaalahaas in badan ay dib noo dhigeen. Waa inaynu ku xirana asxaab wax baranayso, hami leh, dadaalayso, salaadaha ku dadaalayso, iimaan leh, mustaqbalkooda ka fikiraya. Waa inaynu ku dayana. Dadkaas ayaana la saaxiibi karna. Ayaga ayaan dhiirigelin iyo hamigeen inaan rumeyno nugu caawin karo. Dad badan waxay sugayaan motivation, dhiirigelin. Laakiin dhiirigelintu ma sii jirto. Waa wax muddo gaaban ah. Inta ugu horeyso kaliya xamaasad ayaa inta ugu badan ay tahay dhiirigelintu. Ha ku kadsoomin dhiirigelin. Ha dhageysan dhiirigeliyaasha, sababtoo ah wax kama jiraan. Dhiirigelintu waa ku meel gaar. Waa xamaasad kaliya lagu geliyay. Laakiin waxaa muhiim ah discipline-ka. Discipline-ka ayaana maalmaha adag iyo xaaladaha aad rabtid inaad gaartid ku hogaamin kara. Maalinta aadan rabin inaad wax baratid, maalinta aadan rabin inaad dadaal badan sameeyid, maalinta aadan rabin inaad shaqo qabanin, waa maalinta ugu muhiimsan inaad sii wado. Sababtoo ah halkaas ayaa ragga lagu kala gartaa. Dadka raba inay noloshooda hogaamiyaan, isbeddel sameeyaan, halkaas ayaa laga arkaa. Maalinta ay ugu adag tahay
maalintaas ay dadaal sameeyaan, ma caajisaan. Maxaa yeelay mar walba waxay ku dhaqmaan discipline inay maalintoodaas ay hagaajiyaan. Ha ku kadsoomin dhiirigeliyaasha. Nolosha waxaa ugu muhiimsan inaad leedahay discipline aad raacdo maalin walba. Haddii aad 20 jir tahay, fadlan ha lumin naftaada. Ha noqon qof waqtiga dilaya, riyooyin badan leh laakiin ficiladiisu ay yar yihiin. Naftaada dhis maanta, hadda bilow inta aad awooddo. Wax akhri, wax baro, salaada ilaali, jirkaaga ka shaqee, maskaxdaada ilaali. Sababtoo ah qofka aad noqon doonto 5 sano kadib wuxuu ku xiran yahay waxa aad maanta samayso. Naftaada dhis maanta ka hor inta aysan noloshu ku jabin. Dhammaanteena waa talo nagu socota oo aan rabno inaan nolosheena mustaqbalka aan waqti badan gelino. Muuqaalka like saar haddii uu ku cajabiyay fiidiyogan. Ku soo biir channelka Mohan Osman. Mahadsanid.